Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum. Kusoo dhawaada barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka. Qodobada barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah Lionel Messi mise Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane oo magacaabay xidiga ugu fiican ee adduunka, Rafael van der Vaart oo magacaabay kooxda uu aaminsan yahay inay ku guuleysan doonto tartanka Champions League ee xilli ciyaareedkana, waqtiga Gavi uu u saxiixi doono heshiis cusub kooxda Barcelona oo la ogaaday, Xavi Alonso oo kashifay qaabkii Thiago Alcantara uu ugu qanciyay ku biirista kooxda Liverpool. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka. Fadlan haddaad ku cusub tahay like inoo saar, subscribe dhaysiina, share garaysi barnaamijkeena asxaabo badan u gaaro. Mahadsanidina. Zinedine Zidane ayaa Cristiano Ronaldo ka doortay xidiga ay xafiiltamaan ee Lionel Messi markii la weydiiyay in uu kala doorto labada xidiga. Dooda Messi iyo Ronaldo ayaa socotay in ka badan 10 sano hadda, iyadoo qof waliba uu fikrad gaar ah u leeyahay. Zidane ayaa doortay Ronaldo markii la weydiiyay mid ka fiican labada xidig, isagoo u doortay Ronaldo sabab la xiriirta waqtigooda Real Madrid. Zidane ayaa si weyn uga hadlay Ronaldo, waxaana uu sheegay in haatan Manchester United uu yahay xidiga ugu muhiimsan ee abida. Zidane ayaa sidoo kale sheegay in Ronaldo uu ka fiican yahay sidii uu markii hore ahaa. Cristiano Ronaldo waa xidig aad u wanaagsan, waxaana uu mar walba u go'aamin karaa ciyaarta uu kooxda u ciyaarayo, ayuu yiri Zinedine Zidane oo ka hadlayay qaab ciyaareedka Cristiano Ronaldo. Waxaana uu sheegay bandhigyadii uu ka sameeyay muddada uu tababaraha u ahaa kooxda Real Madrid iyo kulamada qaar oo comeback u sameeyay kooxda Real Madrid. Rafael van der Vaart oo magacaabay kooxda uu aaminsan yahay inay ku guuleysan doonto tartanka Champions League. Weeraryahankii hore ee Tottenham Hotspur iyo kooxda Ajax, Rafael van der Vaart ayaa kooxda Barcelona u saadaaliyay ku guuleysiga tartanka Champions League xilli ciyaareedkan. Bulgaariya ayaa markii ugu dambeysay ku guuleystay tartanka Champions League sanadkii 2015, waxaana xilligaasi saddexda ciyaaryahan ee kooxda hogaaminaya ay kala hayeen Lionel Messi, Neymar iyo Luis Suarez. Ma aysan gaarin finalka tartanka Champions League tan ilaa waqtigaasi, iyadoo semifinalka uu ahaa booska ugu fiicnaa ee ay ku dhameysteen tartanka Champions League xilli ay ku dhibaatoodeen tartankana. Si walba haatee, Rafael van der Vaart ayaa aaminsan in Barcelona uu hogaaminayo Xavi 4 jeer ku guuleystay Champions League ay ku guuleysan doonto xilli ciyaareedkana. Barcelona waxay ku guuleysan doontaa tartanka Champions League kaliya waa dareenkay dhab ahaantii waxba kuma saleysna, ayuu yiri qaab ciyaareedka kooxaha kale. Kooxda Barcelona ayaa guul weyn oo 5-1 ku bilaabatay tartanka Champions League xilli ciyaareedkan, iyagoo garaacay kooxda Victoria. Waqtiga uu Gavi heshiis cusub u saxiixi doono kooxda Barcelona oo la ogaaday. Xidiga khadka dhexe ee Barcelona Gavi ayaa lagu soo waramayaa inuu qarka u saaran yahay inuu qalinka uu ku dugo heshiis cusub oo u saxiixo kooxda Bulgaariya Khamiista. 18 sano jirkan ayaa haatan xidig muhiim ah ka noqday kooxda Barcelona, isagoo si joogto ah ugu ciyaara kulamada kooxda sanadihii ugu dambeeyay. Gavi ayaa 46 kulan uu ku bilowday shaxda Barcelona xilli ciyaareedkii hore, isagoo sameeyay 6 caawin iyo 2 gool u dhaliyay kooxda Barcelona. Gavi ayaa doonaya inuu sii haysto qadka dhexe ee kooxda, kaasi oo ku bilowday dhammaan 5 kulan ee ay ciyaartay Barcelona horyaalka liigaha dalka Spain. Si laga soo xigtay Sport, Gavi ayaa qalinka ku duugi doona heshiis waqti fog oo uu ku sii joogi doono kooxda Barcelona. Isla wargeyska ayaa sheegaya in xidiga uu qalinka ku duugi doono heshiis cusub Khamiista kadib kulanka Champions League ee toddobaadkan. Xavi Alonso oo kashifay qaabkii Thiago Alcantara uu ugu qanciyay ku biirista kooxda Liverpool. Xidigii hore kooxda Liverpool Xavi Alonso ayaa shaaca ka qaaday in uu ku qanciyay Thiago Alcantara inuu ku biiro sanadkii 2020. Alonso ayaa u sheegay Thiago Alcantara in ay tahay meesha ugu habboon ee ay tahay inuu ku biiro kooxda Liverpool.
Thiago oo 31 sano jir ayaa Liverpool kaga soo biiray Bayer adduun lacageed oo gaaraya 20 milyan oo euro waxaana uu ka mid noqday xidigaha ugu muhiimsan ee kooxda inkastoo uu dhaawacyo ku dhibaatooday tan ilaa markii uu ku soo biiray kooxda Liverpool. Xidiga qadka dhexe ayaa Liverpool kula guuleystay horyaalka Premier League iyo weliba 3 koob oo kale isagoo dhaliyay 2 gool 4 kalena uu caawin ka noqday. Alonso ayaa Thiago Alcantara kaga soo garab ciyaaray Bayer intii u dhaxaysay 2014 ilaa 2017 iyaga oo isla qaaday koobab badan oo ay ku jiraan 3 koob oo Bundesliga oo xiriir ah. Alonso arintaasi ka hadlay ayaa yiri wax badan ayaan isla soo shaqeynay. Thiago Alcantara waa ciyaaryahan fiican shakhsi ahaan waa ciyaaryahan aad u wanaagsan waxaana uu ku jira qaab ciyaareed aad u fiican inkastoo kulamada qaar ee Liverpool uu dhaawacyo garoomada uga maqnaa waxaana uu sheegay hadii uu ka soo laabto dhaawacyada inuu heli doono qaab ciyaareedkiisa ugu fiicnaa ayuu yiri xidiga Xabi Alonso oo ka hadlay sida uu u qanciyay xidiga Thiago Alcantara ku biiristiisa kooxda Liverpool. guud ahaan waa naga inta barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka fadlan hadaad ku cusub tahay like inoo saar subscribe share gareysi barnaamijkan asxaab badan u gaaro mahadsanidina.